hadduu geed engego xabadaha lagu istaagsaayey mid yar inantiisii ah baa soo wada baxaaye isagaa anfaxiyo hadhkii ood kaafise dadkan odayga goortuu ka baxay iyo isnaantiisa ubudkooda hadbato tabco ayaatin leh markii aadan iyo xaawo ay keenta abuuray sidaasi arwaaxdiyo dhirtiba ku orsaaqday ummaddan dhallinyaradeeda aanan hanin waa ayaan xumaye hami iyo hablaha waxaad tihiin inan iyo hablaha waxaad tihiin aarankii kacaye itaalkaba dadkiisa hore weydiinagaye waliba geeka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bayle ku xusay maalinta dhalinyarada adduunka oo ka beegan 12 Agoosto 2028 sanad walbana waliba la xusay 12 Agoosto munaasabadan oo yahay qaban qaabaday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Koonfur Galbeed ee waliba ku qayb galay مسؤولين كترسن دولة كونفور قلبيد أن كوريا وزير وزارة الدلنيرة يارا دولة كونفور قلبيد مدن سلمان شعيب علي أقاسمها جود وزارة وزير كوجينكا وزير أمنية وزير دينتي وقافته وزير وزارة ورفافينتا دلنيرة مقالة بيدبا iyo ururada bulshada ee kanool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo aan koreyn munaasabada oo la ku xusay maalinta dhalinyarada adduunka ee magaalada Baydhabo laga qoobaday iyo waliba ujeedada iyo muhiimadda la tafaahiyay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda koonfur galbeed mudane Orre muhiimadda maanta loo xusay waxa waay iyadoo aan ognahay in isbedelka cimilada aad u sareeyo heer kulka aad u sareeyo nabaad guurka aad u sareeyo isbedelka cimilada abaaraha iyo waxyaabaha badan oo soo noqda aad u sareeyaan maanta waxa lagu soo beegay inay noqoto maalinta dhalinyarada caalamiga inay qaataan hal ku dhigaas oo ah xirfadda aqaaran ee dhalinyarada ee ku aadan mustaqbalka wanaagsan xirfaddan waxay ka caawisaa dhalinyarada inay hal abuur yeeshaan maskaxdooda ay bedesho cilmina ay siiso si ecosystemka iyo beeyadda ay ku nool yihiin ay u noqoto beeyad waarta beeyad nabadeed environment aad u haboon yahay laguna noolaan karo sidaasata waxaan hukuumadda ururada bulshada ah ku qayb galay xanraabti iyo dhalinyarada iyo sidaasata meelaha hadal kooban iyo ku jeedi iyo gabayo gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda degmada Baydhabo Muawiya Ibrahim iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda koonfur galbeed Maxamed Awees ya meelaha hadal kooban dhiirigelin ay ku jeediya sigaar ee dawladda gobolka koonfur galbeed dhalinyaradiis sigaar ee waliba reer Baydhabo dhalinyarada reer Baydhabo hambaliyo sanaa hambali ku bacda alexoko fursado dhalinyarada waleen qabuuray madaxweyne Cabdiciis oo ah xuri dhalinyaro kartale wasiir iyo xildhibaano iyo dhamaan qaybaha kala duwan dawladda markii ay fiirada isteedada kale dawlad goboleedkan wali uu duwinyaa 80% dadka oo xukunka hay wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhamaan qaybaha dawladda waleenka badana dhalinyaro maanta waa maalin weyn oo ku weyn dhalinyarada adduunka meel kasta ay joogaan marka aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed runtii caqabadaha na haysto waa ay fara badan yihiin ka dawlad ahaan anaga oo matalan dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mar walba waxay u taagan tahay talasiinta iyo waliba xoojinta horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya runtii war badan ma jiro mas'uuliyiin badan ayaa noo jooga oo waqti ku socdo waxaan ku soo dhaweynayaa maalintan farxadda leh waxaan ku baraarujinayaa inaad ka qayb qaadataan horumarka dalka si wada jir aan isugu garab istaagno aan hukuumadda golaha wasiirada oo ku qayb galay munaasabada oo ka horeeyay wasiirka amniga dawladda koonfur galbeed wasiirka warfaafinta wasiirka diinta iyo qaabta koonfur galbeed ya sidaas hata maalinta dhalinyarada ka boori in iyo andhabar adeegan dalka kiisho waana ku shaqeeyaan nabad iyo horumarka maadaama fursadaas qaaliga ah una halni intaas dhalinyaro ana roogto wadankan oo una ilaahayna sii una ka noolna ka dhalanay waana ka sii noolado doonno ilaa lagu dhimado walbadano dhalinyarada ku kirinya ambaahinya jarta marka dhalinyarada koonfur galbeed wali fadaanayeen arintaas ogaada may ay amniga number 1 amni hooba injarna noolala ma jarta hooba amni injarna dhalinyaro walbaradaas ma jarta amni hooba injarna dhalinyaro wal niiskooyo soo xafladso qurux badan iyo wasaaradii oo dadkaayaan ma jarta walaagaas dhan marka ma imbaahin amnigaas ay lagu sugahay ama soo ma sugahayne amnigaas uu korkeen ka jaran wadanku uu leh uu dhalanay uu noola dhalinyaran xoog shay dhalinyaradu
marka amnigaas ya dhini kasta wali fadaana dhalinyarada in ku qayb qaadato silan hela waxyaabaha isin hiigsida ay tan oo yaani fursad iyo hambata haddii geeka tuulo ka mid degmada Baydhabo hoos kooyasa la xureeyo amsiya la ka dhisay iskoola la ka dhisay mayba meel ka bilaawdaas shaqo abuura ka bilaawdaas shaqadii yaraati degmada Baydhabo ha ku koobanti silan hela dhalinyarada diyaaran nagadan silan xureeyo deegaanada koonfur galbeed oo isku yaani deegaanada in isku socodka oo tuulooyinka iyo deegaamada kale yaani hirin mayba sinki dhiiri geliyeeyaha micnaasha ma ay obsa lankasta waqti sheeka dhimade lankastana may leedahay xilliga usulunkoy lanka badbaado male dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya munaasabadan weyn maantay oo aan kala qayb galayno oo ku beegan 12 Agoosto waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo munaasabadan abaabulkeedii qoladii sameysay dhammaan aanoon kala reebaynin waxaan rabaa inaan iraado waa mahadsantiin wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda koonfur galbeed mudane Salmaan Shucayb Ali oo hiri munaasabada ya waliba dhalinyarada uu sakabooriyay inay sii wadaan dadaalka iyo muujihayaan qayb qaadowka amniga horumaryowka deegaanka iyo isdhexgalka bulshada bacda salaan run ahaantii waxa farxad weyn ah ina maanta nagala soo qayb gashaan xafladda maalinta dhalinyarada oo run ahaantii annaga aad iyo aad noogu weyn ee ku beegan tahay maanta waqtigiina iyo kasoo qaybgalkiina waan kaga mahadnaqaynaa dhalinyarada reer koonfur galbeed waxaan ku amaanayaa sida wanaagsan ay isugu duwan yihiin isku garab istaagan yihiin horumarkan ay ugu shaqeynayaan sidoo kale waxaan rabaa inaan kula dardaarmo inay ka shaqeeyaan nabadda amniga dawladda garab istaagaan shacabkooda garab istaagaan maxaa la dhahay saas oo kale dhireenta magaalada cimilada marmar waa isbedeshaa waxa loo baahan yahay kalaama janjiga inay ka qayb qaataan dalkaaga iyo dadkaaga adaa nadaafad u yeeli karo adaa amni ka dhigan karo inaa u istaagtaan laga baahan yahay dhalinyarada guud ahaan meel walba ay joogaan dhalinyaradana ay hal naqato hadday naqato scholarshipyo in lagu faa'iideeyo hadday naqato in tareeninada xirfadaha la sameeyana inay ka qayb qaataan inay waxaan rajaynaynaa ee wasaaradda inay tahay u furan tahay albaabkeeda wasaaradda dhalinyarada waa wasaaraddiina inay tahay ma imaan kartaan ana saaxiibkiina ahay inay tahay ma imaan kartiin ugu dambeyn xafladeeni baanta quruxda badneed waxa u mahadnaqaa sida dadka gaarka u soo agaasime wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo dhammaan gudoomiyaha dhalinyarada state-ka iyo degmada aad iyo aad ayagan u mahadnaqaa ee cid walba ka qayb qaadatay martidana oo ugu mahadnaqaa sida quruxda badan ay noo dhageysteen waqtigooda noo siiyeen xafladeena maanta meesha noogu xiran tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh munaasabadan oo halku dhiglanka dhaki xirfado agaarka ee ka wajahan adduunka waara maalinta dhalinyarada lanka magaadare si ay ugu qayb qaadaan agaaryowka iyo dhireeyowka deegaanada koonfur galbeed ee dhalinyarada reer koonfur galbeed Ibrahim Xasan Ali warbaahinta koonfur galbeed magaalada Baydhabo